noloshii ku dhisnayd midab sooc iyo kala saraysiinta bulsho taasoo ka jirtay Koonfur Afrika, midaas oo gumaystayaashii reer Yurub ay ku hayeen dadyoogii Koonfur Afrika ayagoo ka dhigay dadkii dalka u dhashay darajada labaad una diiday shaqooyinka iyo goobaha waxbarashada. Sidoo kale waxay u diideen inay qayb ka noqdaan doorashooyinka dalkooda, balse taa waxaa ma yiri halyeeyii Koonfur Afrika ee Nelson Mandela. Saaxiibayaal, maanta waxaan barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa halgamaagii ka dhiidiyay heeryada gumaysigii ku dhisnaa midab kala sooca ee Nelson Mandela. Nelson Mandela waxa uu dhashay 18 Julaay 1918. Wuxuu ku dhashay tuulo yar oo la yiraahdo Mafeso oo ku taala gobolka Transkei ee Koonfur Afrika, wuxuuna ka dhashay qabiilka Xhosa. Yaraantiisii waxaa loogu naanaysi jiray Rolihlahla. Markii uu iskuulka galay, macalinkiisii Ingiriiska ahaa ayaa siiyey magaca Nelson. Wuxuu waxbarasho ka helay dugsiyo kala duwan. Ugu dambeyntii waxa uu galay jaamacadda Fort Hare sanadkii 1939, balse waxaa laga eriyay 1940 sababtoo ah waxa uu ka qayb qaatay mudaharaad ardayeed. Kadib Mandela waxa uu u guuray Johannesburg, halkaas oo uu ka shaqaystay shaqooyin kala duwan, isla markaana ku biiray jaamacadda Wits isagoo ka bartay kulliyadda sharciga. Sanadkii 1943 Mandela waxa uu ku biiray ururka ANC African National Congress isagoo ka qayb qaatay halgankii lagula dagaalamayay nidaam loo yaqaano apartheid, kaasoo dowladdii caddaanka ahayd hirgelisay sanadkii 1948. Apartheid waa eray micnihiisu yahay kala soocid, wuxuuna ahaa nidaam sharci iyo siyaasadeed oo ay dowladdii caddaanka ahayd ee Koonfur Afrika hirgelisay sanadkii 1948 kadib markii xisbiga National Party uu ku guuleystay doorashada. Ujeedada nidaamka apartheid waxay ahayd in la kala sooco dadka ku nool Koonfur Afrika iyadoo lagu saleynayo midabka maqaarka, in dadka madow laga dhigo muwaadiniin darajo labaad ah oo aanan lahayn xuquuq siman. Dadka madow looma ogoleyn inay degaan magaalooyinka dadka caddaanka ah ay degan yihiin, waxaana lagu qasbay inay ku noolaadaan dhul gaar ah oo loo yaqaano Bantustanis. Waxaana lagu qasbay inay wataan waraaqado sharci ah oo ogolaansho ah markii ay socdaan, kuwaasi oo loo yaqaanay pass laws. Dadka madow looma ogoleyn inay u codeeyaan doorashooyinka, sidoo kale looma ogoleyn inay qabtaan shaqooyinka qaar ama ay helaan waxbarasho iyo adeegyo caafimaad ah kuwaas oo ay helaan dadka caddaanka ah. Meelaha dadweynaha sida basaska, xeebaha, maktabadaha iyo xitaa musqulaha waxaa loo sameeyey qaybo gaar ah oo kala ah qaybta caddaanka iyo qaybta madowga. Nidaamkan waxaa ka dhashay takoor aad u weyn, saboolnimo baahsan oo dadka madow ku dhacday, kacdoon joogto ah iyo rabshado dalka ka dhaca. Apartheid waxa uu socday muddo ka badan 40 sano. Intaa kadib Mandela iyo asxaabtiisii waxay aasaaseen ANC Youth League si dhalinyarada loogu mideeyo halgan cusub. Muddadii 1950-yadii Mandela wuxuu hogaaminayay mudaharaadyo waaweyn oo ka dhan ah sharciyada takooridda sida sharciyada pass laws oo dadka madow ku qasbi jiray inay wataan waraaqado ogolaansho ah si ay u socdaan. Sanadkii 1956 Mandela iyo hogaamiyayaal kale oo ANC ah ayaa lagu eedeeyay khiyaano qaran, waxaana la saaray maxkamad loo yaqaano treason trial, taasoo ah maxkamadeyn khiyaano qaran, waxayna socotay ilaa 1961. Ugu dambeyntii waa la sii daayay, waxaana halkaas ka sii socday mudaharaadyadii nabadeed. Laakiin mudaharaadayaashii waxaa weerar ku qaaday booliiska, waxayna toogteen ku dhawaad 69 qof oo mudaharaadayaal ah. Nelson Mandela waxa uu ogaaday in loo baahan yahay hab kale oo ka duwan mudaharaadyada. Isla sanadkii 1961 Mandela wuxuu ka mid noqday aasaasiyaashii urur hubeysan oo la oran jiray Qoriga Qaranka, kaasoo qaaday weeraro xadidan oo ka dhan ah hay'adaha dowladda caddaanka ah. Sanadkii 1962 Mandela waa la xiray isagoo lagu eedeeyay inuu abaabulay kacdoon, waxaana lagu xukumay 5 sano, balse markii dambe waxaa loo qaaday maxkamaddii caanka ahayd ee Rivonia Trial. Sanadkii 1964 Mandela halkaas wuxuu ka jeediyey khudbaddii taariikhiga ahayd ee uu ku yiri, waxaan diyaar u ahay inaan u dhinto aragtida ah in dadka iyo qowmiyad kasta ay si siman u wada noolaan karaan. Kadib waxaa lagu xukumay xabsi daa'im. Nelson Mandela wuxuu ku jiray xabsiga muddo dhan 27 sano. Intii uu xabsiga ku jiray wuxuu caan ku noqday dulqaad iyo hogaamin, inkasta oo xaaladaha ay aad u adkaayeen, cuno xumo, shaqooyin adag iyo kelinimo. Mandela wuxuu tababaray maxaabiista kale, wuxuuna ku dhiirigeliyey in halganka loo sii wado si nabad ah. Muddo kadib
cadaadis caalami ah iyo kacdoono gudaha ah. Madaxweynihii Koonfur Afrika ee de Klerk wuxuu ku dhawaaqay in Mandela la sii daayo taariikhdu markay ahayd 11 February 1990. Mandela wuxuu ka soo baxay xabsiga. Markii uu xabsiga ka soo baxay, wuxuu ku baaqay cafis iyo dib u heshiisiin, halkii laga filan lahaa inuu aargoosto. Sanadkii 1991, Mandela wuxuu noqday hogaamiyaha ANC, wuxuuna wadaxaajood la galay dowladdii caddaanka. Nidaamkii apartheid waxaa si rasmi ah loo soo afjaray sanadkii 1993, waxaana Mandela iyo de Klerk si wadajir ah loogu abaalmariyey Nobel Peace Prize. Taariikhdu markay ahayd 27 Abriil 1994, Koonfur Afrika waxaa lagu qabtay doorashadii ugu horeysay ee qof kasta codkiisa dhiiban karo. Doorashadaas waxaa ku guuleystay Nelson Mandela, wuxuuna noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee madow ah ee dalkaasi Koonfur Afrika. Muddadii uu xilka hayay 1994 ilaa 1999, Mandela wuxuu sameeyey isbeddello waaweyn. Wuxuu dhisay dowlad midnimo qaran ah, wuxuu sameeyey guddiga runta iyo dib u heshiisiinta si loo bogsiiyo dhaawacyadii apartheid, wuxuu xoogga saaray waxbarashada, caafimaadka iyo la dagaalanka saboolnimada. Mandela wuxuu xilka kaga tagay si sharaf leh sanadkii 1999, isagoo doortay inuusan mar kale u tartamin. Kadib markii uu xilka ka degay, Mandela wuxuu noqday astaan caalami ah. Wuxuu si weyn ugu ololeeyay la dagaalanka HIV/AIDS, wuxuuna taageeray howlo badan oo samafal ah. Nelson Mandela wuxuu u geeriyooday 5 Diseembar 2013, isagoo 95 jir ah. Mandela wuxuu ina baray in dulqaad iyo cafis lagu beddeli karo nacayb iyo dagaal, in nabad iyo wada noolaansho lagu gaari karo wadaxaajood, in adkaysi iyo halgan dheer ay keeni karaan guul. Ugu dambeyntii, Nelson Mandela wuxuu ahaa halyey aan keliya u ahayn Koonfur Afrika, balse u ahaa caalamka oo dhan. Sheekadiisu waxay inoo sheegaysaa in xorriyad iyo cadaalad aan lagu gaari karin nacayb, balse lagu gaari karo dulqaad, wadahadal iyo cafis. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Haddii aad jeclaatay sheekada Nelson Mandela, ha ilaawin inaad like, share iyo subscribe ku samayso si aan u wadaagno sheekooyin kale oo taariikhi ah. Mahadsanid.